بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan halka ka salaamayaa dhammaan Soomaali Maxamed meel walbay joogaan. Waxa kay nooga sii socon doona insha Allah gabayadii diiniga ahaa ee taxanaha. Waxa gabayga maanta la yiraahdaa nolol saameyn leh, wuxuuna ka hadlayaa in khaladaadka aad samaysaa aad khibrad ka hesho. wuxuuna ku bilaabmaya insha Allah sidan: nolol aad khalad samaysaa way ka sharaf iyo saameyn badan tahay nolol aadan khalad samayne. khabiirku waa ruux sameeyey khalad badan kuna suntan inuu simbirixoodo in badan siibtay. inaad sare u kacdo noloshaada horena u socoto waxay nolosha ka yeeshaa sahamin saadaal wacan na weeye. samirkaa lagu gaadhaa nolol wacan. safarka noloshaaduna waa inaad niyad sami kaga soconaato dadke. sahal maaha noloshu si yaroo fudud guusha ku soo geli sacabade. waa inaad u silicdo saxar waxaan lahaynood habeeno u soo jeedin badanna gacmahaagay ka siibtaan kolkiiba. sideedaba wixii ku samaysmay ka sii badi sahanka, sidaasi sacbada ha kaga qaadine. saban badan sug aayahaaga, sannado wixii qaatana sax bay ku idlaadaane. guuldaro waa adoo isdhiiba saakadiiba oon u sii socon taxigtee. nolosha alle ayaa sakhiray wixii kuu suurto galay, waxa soo socdana allah kuu sahliye. saatirka ilaahna tala saaro, diinta suubanna ku tasho inaad dhaqan sifaysan ka yeelato. 99 allow raxmadaadee aakhiro hana seejin. nololaad khalad samaysaa way ka sharaf iyo saameyn badan tahay nolol aadan khalad samayne. khabiirku waa ruux sameeyey khalad badan kuna suntan inuu simbirixoodo in badan siibtay. waad mahadsantihiin dhammaantiin. waxaan leeyahay haddii aad khalad samayso hambalyo, dad baa jira aan isku dayinba. aduu sax uun khaladkaagoo wax ka baro insha Allah walaalayaal. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.